السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo. Saakay waa subaxnimo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Juulaay sanadka 2025. Waa barnaamijkeeni ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta oo Isniin ah idiin soo gudbin doono haddii Allah uu dilay ka raali noqdo. qodobo muhiim ah aynu barnaamijkeena saakay idinkugu soo gudbin doonaa. Xuutiga oo aargutay kadib markii saakay uu weeraro gantaalaha ku qaaday Israa'iil, iyadoo Israa'iil xalay saqdhaxna ay diyaaradaheedu weerareen qaar ka mid ah dekedaha Yemen. haddaba duqeymo culus oo la isdhaafsaday labada dhinac ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Al-Qassam oo saakay war soo saartay sheegtayna in gantaalo ay ku riday goobo ay ku urursanayeen ciidanka Israa'iil iyo deegaano ka baxsan magaalada Gaza. haddaba waxay sheegeen inay daakum ka dhigeen ciidanka Israa'iiliyiinta ee saakay doonayay qaybo ka mid ah Gaza inay soo galaan. ciidamada Israa'iil oo qirtay in gantaalo ay ka soo dhaceen saakay koonfurta Gaza. haddaba xaaladda magaalada Gaza ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Witkoff oo ah ergeyga u qaabilsan arrimaha bariga dhexe madaxweyne Donald Trump oo rajo ka muujiyay wadahadalada ka socda Dooxa in lagu gaari doono heshiis xabad joojina saacadahan lagu soo aadan. haddaba qodobadaas ayaynu saakay barnaamijkeena subaxnimo ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno wixii warara ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saakay waxaynu ku bilaabaynaa. haddaba duqeymo culus ayaa la isdhaafsaday saakay. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa xalay saqdhexe waxa ay weerar ku qaadeen qaar ka mid ah dekedaha dalka Yemen, iyagoo weliba sheegaya saakay inay hanjabaado kale dirayaan oo ay leeyihiin meelaha laga guuro haddana waa soo weerari doonaa. iyo Xuutiga oo isna saakay mar kale gantaalo ku soo weeraray Israa'iil. haddaba xaaladda Xuutiga iyo Israa'iil ayaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena subaxnimo saakay oo Isniina. haddaba jirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa waxay leedahay ciidanka Israa'iiliyiintu waxay qaadeen weerar dhinaca cirka ah iyagoo ku weeraray dekeda la yiraahdo Xudayda, iyagoo sidoo kalena digniino u diray 3 dekedood iyo goobo kale oo korontada laga sameeyo wadanka Yemen. waxaana la sheegayaa in ay arrinkan uu la xiriiro dagaalka u dhaxeeya labada dhinac. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa la leeyahay ciidanka Israa'iil ayaa weeraray bartamihii xalay saqdhexe oo markaa weerar ay ku qaadeen iyadoo xalay Isniin ay soo galaysay dekeda Xudayda la yiraahdo wadanka Yemen ayay Israa'iiliyiintu weerareen, iyagoo sidoo kale digniino u diray inta aan weerarka dhicin ka hor in markaa la faarujiyo. in waxay yiraahdeen in sidoo kale la faarujiyo 3 dekedood oo markaa ay doonayaan inay mar kale bartilmaamaysadaan. ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay markaasi weerarka qaadeen iyadoo bartilmaameed ay ka dhiganayaan dekedaha wadanka Yemen iyo goobaha korontada laga dhaliyo. marka waxaa soconaya meeshaan weeraro
israa'iil waxaa leeyahay meel ay ugu hagaagto gantaalaha lagu soo ridayo mataqaanaa le waxyaabaha la yaab kale oo dadka ay ka falcelinayaan oo ay ka hadlayaan waxaa ka mid ah dekadaha eeraboorada goobaha korontada kaliya weeraraysa sababtoo ah xuutiga lama yaqaano gantaalihiisa iyo meelaha ay wax u yaalaan xuutiga isaga lama weerarayo waxa la weeraraa waa waxyaabihii caamka ahaa dadka ka dhaxeeyey shacabkii dekadihii ay isticmaalayeen waxaase israa'iil soo weeraraysaa haddii ay ogaan lahaydaa lagu leeyahay meelaha gantaalaha u yaalaan hurda la-aanta ku riday gantaalihii ay weerari lahayd laakiin xuuti dekad gantaal uma yaalo maaragtay eeraboor gantaal uma yaalo gantaalihiis meelu kasoo ridaa marka waxaa leeyahay taas waa fashil israa'iil ay ku fashilatay sirdoonkoodu inuu dhex galo nimankan maaragtay xuutiyiinta ah oo markaa war looga soo tabiyo oo loo sheego gantaalaha halkaasi yaalaan warkaalay maraykanaa ku daalay laftirkiisu soo u raadinaya gantaalihii waayuu yiri nabad qaad marka hadda waxaa leeyahay hawshu halkaasi maray weliba war hadda soo dhacay waxaa leeyahay afhayeenka ciidanka wuxuu leeyahay israa'iil weeraro kalaa soo qaadi doonaa ilaa 3 goobood ayuu sheegay inay weerari doonaan oo dekada ah in dadku ay ka fogaadaan waa soo weeraraynaa ayuu leeyahay marka israa'iil marka ay intaa samaysay oo weerarada ay qaaday oo dekadaha ay weerartay xuutigu marka wuxuu tusinayaa weerarkaas inaan macno ugu fadhin oo macnaha dekada la weeraray inaysan macno ahayn ee gantaalihii uu ku weerarayay iyagu kasoo kululaadeen oo dhibaatada u geystay inay aargutaan ay usoo baxeen inuu gantaalihii weli haysto tusaya goor dhoweyd marka waraa soo baxay laleeyahay xuutigu nagta ayuu ka saaray markii ay maaragtay waagu barya saako isniinah ayuu garaacay haddaba marka aad tusoo jariirada la yidhaahdo asharqul awsad waxay leedahay ciidanka israa'iiliyiinta waxaa la sheegayaa ciidamada israa'iil inay saakay oo isniin ah ka hortageen 2 gantaal oo ka yimid dhanka Yaman saacado kadib markii israa'iil ay fulisay weeraro isxigxigay oo dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameysatay goobaha halbowlayaasha dhaqaalaha xuutiyiinta ee dalka Yaman haddaba waxaa la sheegayaa ciidamadu bayaan ay soo saareen telegramka inay ku sheegeen inay markaa ka hortageen 2 gantaal sida ay sheegeen oo markaa xuutiga dhankiisa ka yimid kuwaas oo ku socday israa'iil waxayna sheegeen in siiriga digniinta ah dadka looga digay inay godadka ku cararaan deegaano kala duwan oo israa'iil ka tirsan iyagu marka weligood ma sheeganayaan xuuti gantaalu soo ridaa dhibaato geystay weligood ma dhih laakiin waxay yidhaahdaan waa ka hortagnay meel cidlaa uu ku dhacay intaasuu sameeyey marka hadda waxay leeyihiin gantaalihii dadka qaar waxay leeyihiin casqalaan waxaa laga maqlay meel jug culus ayaa laga maqlay goob kale jug kalaa laga maqlay marka arrimahaas waa isku dhex jiraan marka meeshii waxaa ka muuqata alcumuum dadku meelay ka fiirinayaan waxay leeyihiin gantaalihii xuutigu ma dhibaataa loo geystay awoodii xuutiga ma la naaqusiiyey may laakiin dekad dadku waxay ugu soo xiranayeen israa'iil duqays eeraboor duqays kana duqaysaa maqlaysaa laakiin nimanka gantaalooda markuu haysta jawaabta marka saaka isla 2 gantaal loogu soo weeraray waxay tahay si kasta haddaad dekada u weerartaan gantaalahan ma joogsanayaan mana arki kartaan marka waa idinku soo soconayaan saasaa nagtayda kaga saaraynaa marka waa laysu hanjabay marka hadda israa'iil waxay leedahay weeraro kalaa ku noqonaynaa dadku waa inay ka fogaadaan meelaha ay markaa weeraradu ay ka jiraan qodobka halkaas kaga gudbaynaa nimankii kataa'ibul qasaam ahaa ayaa iyaguna waxay leeyihiin saakay ciidamo meel isku urursanaya ayaynu dukum daakum ka dhign waxaan sidoo kale gantaalo la dhacnay dureedka Gaza meel yahuudu ay degan tahayna gantaalaha ku garaacan waa nimankii alqasaam ahaa oo Gaza joogay oo ku dhawaad 2 sano halkaa ka dagaalamaya ayaa gantaalo inta la soo baxeen ayay saakay nagta ka saareen haddaba marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray
alqasaam waxay leedahay aljaziira ay qoraysaa inay markaa bartilmaameysatay goobo yahuudda la dejiyay oo ku yaala duleedka gaza war ay soo saareen kataa'ibul qasaam waxay ku sheegeen inay bartilmaameydsadeen deegaanada la yidhaahdo niiriim walcayn athaalita iyo qulaaf gaza oo ay ku weerareen gantaalo ay markaa kasoo ridayeen gaza. haddaba dhanka kale waxaa la sheegay in ay daakum ka dhigeen goobo ay isugu soo urureen ciidanka yahuudda ah deegaano markaasi ku yaala dhinaca waqooyiga ka xiga khan yunis koonfurta gaza ku taala waxaana ay sheegeen inay halkaa la dhaceen gantaalaha hoobiyayaasha loo yaqaano oo ay halkaa si fiican ugu garaaceen. hay-adda wararka u faafisa israa'iil ayaa qirtay in gantaal uu ka yimid dhinaca gaza uu ku dhacay deegaanka la yidhaahdo nayriim oo ka tirsan dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey. waxay sheegtay gantaalku inuu baabi'iyey xaafado dhowaan dayactir lagu sameeyey kuwaasoo horay ugu burburay dagaalkii 7 oktoobar ay reer gaza kusoo qaadeen deegaanada yuhuudda la dejiyey. nimankii alqasaama waxay leeyiin weeraro kala duwan aqaan ciidan israa'iiliyiin oo is aruursanayo horta daakum aan ka dhignay leeyihin hoobiyaalaha 4 dhinacta kala marnay ayaa nagta ka saarnay magaaladii ka baxsanayd gaza oo yahuudda ay deganaydna gantaalaha ku weerarnay oo aan ku garaacnay leeyihin. haddaba marka ciidanka israa'iil isagu muxuu qiranayaa saakay. haddaba aan idintu soo warbixin mar kale aljaziira ay qortay ciidamada israa'iil waxay sheegeen oo ay qirteen in ay dhaceen dhibaato dhinaca maadiga ah oo qof aysan ama naf aysan waxba ku noqon laakiin burbur hantiyadeed uu dhacay deegaanka la yidhaahdo nayriim. ciidanka israa'iil waxay sheegeen saaruuq laga soo riday dhanka koonfureed ee gaza inuu ku habsaday deegaanka la yidhaahdo nayruum oo markaa dhulka yahuudda la dejiye ah way qirteen. marka waxay leeyihiin wax yeelo nafeed ma dhicin qofna nagama dhiman qofna nagama dhaawacmin laakiin waxaa dhacay burbur hantiyadeed ayaa u geystay gantaalka halkaa ka yimid ay ku leeyihin. marka xaaladaha marka saakay halkaasay marka wax marayaan nimankii maaragtay xuuti iyo way u tuuratahay israa'iil dhankana alqasaam saakay way dabaaldegayaan oo waxay leeyihiin koox ciidana ayaynu daakum ka dhignay. haddaba wadahadaladii iyo wixii warara ee kasoo kordhay saakay xabad joojinta lagu doonayay gaza ee dooxa ka socday ayaan iyaguna wararkii ugu dambeeyay dul maraynaa xayeysiinta kadib haddii alla idmo. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah qur-aanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan waa subaxnimo isniina barnaamijku waa kii ugu horeeyay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa. haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa xabad joojintii iyo nabadii iyo wadahadaladii dooxa ka socday ee gaza ku saabsan halkee wax marayaan. haddaba marka aan idintusoo ergeyga madaxweynaha maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ninka la yidhaahdo Witkoff ayaa wuxuu sheegay arrimuhu inay si wanaagsan oo sidii la rabay
wadadii wanaagsaneed ay ku taagan yihiin marka laga hadlayo heshiiska. Joornaalka la yiraahdo Dacood Axranood ayaa wuxuu soo xigtay ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe u qaabilsan Steve Witkoff kaasoo kulan la qaadanayay jaaliyadda Yahuudda ee magaalada New York, wuxuuna u sheegay inuu rajaynayo in markaa Israa'iil ay soo dhamayn doonto dagaalka ka soconaya Gaza, rajada xabad joojinta la qabana ay tahay mid markaa aad u fiican. wuxuu leeyahay jaaliyadda Yahuudda la shireeyay magaalada New York dagaalka waa soo dhamaynayna, rajadiisu way fiicantaa, wadahadaladu meel fiican ay mareen, macnaha yididiilo fiican ayaa marka muuqato leeyahay dagaalkan inay Yahuuddu Israa'iil iska joojinayso. dhanka kale marka iyaduna isla wadahadaladan waxaa war ka soo saaray madaxweynaha Israa'iil. Al Jazeera waxay leedahay madaxweynaha Israa'iil wuxuu sheegay inuu rajaynayo guul inuu u rajaynayo wafdiga wadahadalada Israa'iil ee Dooxa ku sugan ayuu guul u rajaynayaa. madaxweynaha Israa'iil Isxaaq Herzog ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay inuu wafdigooda wadahadalada u tagay Qatar markaa guul u rajaynayo in markaa ay ku guuleystaan sidii loo soo celin lahaa dadka maxaabiista ee Israa'iil ka maqan, dagaalkana loo joojin lahaa ayuu leeyahay. marka ninkan madaxweynaha isagu sidiisaba waxa leeyahay uu ka dabacsan yahay Netanyahu iyo raggan kale ee mayalka adag. isagu weligiis wuxuu ku baaqi jiray in maxaabiista la siiyo priority oo mudnaan la siiyo, mudnaan in maxaabiista la soo daayo, Falastiiniyiinta maxaabiistooda loo daayo, xabad joojinta laga shaqeeyo waxaas. laakiin nimanka kale macangaga ah ee dowladan iyo Netanyahu iyo raggiisa ayaga ayaa hawsha halkaa ka qasay. marka waa arki doonaa kulley maanta waxaa la filayaa inay kulmaan Netanyahu iyo Trump sida lagu wado. haddaba muxuu Trump ku dhawaaqi doonaa maanta? ilaa hadda wax natiijo ah oo isafgarada oo Qatar ka soo baxay ma jiraan. marka kulley waxay noqon doontaa leeyahay dadka wax saadaalinaya dibay u dhici doontaa sheekadii Trump uu maanta inuu wax ku dhawaaqa rabay way ka baaqan doontaa ayaa la leeyahay. haddaba waa arki doonaa wixii warar soo kordha. xaaladahaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay tan iyo intaynu kala maqnayn ku soo kordhay xaaladda bariga dhexe. intay aynu maanta barnaamijyada idiin soo gudbinayno wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu idinkula socodsiin doonaa. barnaamijkii waa nagaytaa لايكري أو شيركري فكري أركتنا نوصل قرأ هذا سبتها سبسكرايب كايلو يوتيوب فيسبوك ولا فولو كري أنت عن مركز كل ما إنه